بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الير بل هالمر أنا إذن شذو طبعا مركز فلانقين دونا إن شاء الله تعالى. افر ها يقول علي افر واكفر ساعة لا بالله بس بيبر الله ورجعت. سبحان الله. وطبعا هذا الكفتن ولا رأي ودهن hadalkan waa hadal culus aad u weyn run ahaantiina waxyaalo badan ayuu xambaarsan yahay walaashan ma la furay nacam way furanta sida culimada badankooda ay qabaan waxaan ku dabaqaynaa markaasi xadiidkii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam oo yiri thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid saddex dhabtooda iyo run ka dhigidooda waa sida macnaha dhab hadii aad u dhahdo waa ay yihiin dhab macnaha sidaas oo kale hazli ama kaftan iyo ciyaar hadii loo sameeyo loo dhahana dhab ay noqdaan marka dhabtoodan waa dhab kaftankoodana waa dhab marna ma galaan ciyaar marka walaalaha Soomaaliyeed in badan waxay marayaan in waxyaalaha qaarkiisa kaftanka uu la galo ilaa iyo furiin oo dhaco waxaan isleeyahay inaynan garanayn waa laga yaabaa walaalahan inay og yihiin dabcan ay ka noqotaan waa laga yaabaa waxaan se u badinayaa inaynan ayaan u badinaya maxaa yeelay hadday og yihiin furiin inuu arintan ay keenayso oo ay dhab tahay ay dhacayso ismalihi ama macquul ma ahan inay dabcan ku dhawaaqi lahaa ama ay samayn lahaayeen sidaa darteeda inaynan ogeyn u badi xadiidkan marka sida culimada ay u badan yihiin inuu saxiix yahay weeyaan maxaa yeelay khilaaf yara ku jira oo قرآن ده سوا ضعيف قرآن وحي ليه طبعا ضعيف ما هو صحيح يعني الشيخ الألباني أيات سيدو كلا صحيحنا حديثك مركا وانا سيدا لو بدنيا أرنتا نوعا وكراء يوكوا كدران سوشيال ميديا ويكدعان مركا وحنا غفا إذا سننا أرنتا ولاشان إوالكان سميي ayagaasi kaligooda ma aynan samayn dad badan ay sameeyay marka aan leeyahana waxa laga yaabaa inaad og tahay su'aalaha soo tira badan in habeen iimaan wadaad la weydiiyo waxaan dhihi karaa taqriiban bishii ugu yaraan 2 mar 3 mar su'aalahan way yimaadaan culimo mu'tamar fadhisa su'aalaha noocan oo kala ah way ku soo laabtaan inaad aragteenan filaya yani waxay gabadha leedahay ninkayga si kaftan ah ama ciyaar wuxuu ii dhahay waan ku furay sheekhu ma furanahay ama nin ayaa wuxuu leeyahay sheekhu xaaskayga anoo la ciyaarayo waxaan ku iri waan ku furay iyo wixii la midka sidaa darteeda niyaday u baahan culimada dhahaysa arintan ninka inuu gabadha furo inuu niyeystay u baahan tahay waa laga awood badan yahay marka la fiiriyo talaaqa sariixa yani talaaq ama furitaanka waadixa ee aan wax shaki ah ku jirin waxa kamid ah waa maxay alfaad ama lafdiyada la fahmi karo tusaale ahaan waan ku furay waa hadal cad waa iga furantahay waa hadal cad haddaan ku furaya oo waa iga furantahay haddaad aan ku furay macnaha sidaas oo kale hadallada furiinka aan haba yaraatee shaki la gelin karin ayuu kamid yahay dabcan hadalkan oo ifur maxaa ku xigay waan ku furay sidaa darteed aan leeyahay walaalaha arimahan ka dhiganaya ciyaar iyo kaftan waxaad ogaanaysaa xadiidkan inuu idinku dhaboobayo saddex dhabtoodana waa dhab kaftankoodana waa dhab ciddii hore u ogeyd waan ku adkaynaya waxaan ku leeyahay nacam arintaa waa halis waa arin jirta halisteedana adiga aad qaadayso ogow ciddii sidaa samaysa dalqadaa ka dhacday ciddii ku dhawaaqda waan ku furo dhahda dalqadaa kaa tagtay waxaa sidoo kale isdhahayaa marka uu sidaa dhaho markiiba wuxuu leeyahay kugu soo laabtay kolley hadalkiisa inuunan ahayn u badi dabcan oo la saaray ayagana ay matalayaan siday ahaataba matalaada aad matalayso waa dhab matalaada aad matalayso waxa la mid oo xadiidka ku sugan saddexda marka rasuulka kaleey sallallahu uu ka hadlay at-talaaqu wan-nikah wal-'itq aw ar-raj'a talaaqa furiinka iyo nikah gabadheedan ku siiyay waan aqbalay ama gabadheedan kugu daro ma aqbashay waan aqbalay way ka tagtay gabadha sidaas lagu guursaday hadii uu dhaho waan aqbalay wabillahi tawfiiq meherkaas wuu xirmay waa meher aqidmay sidaa darteeda arimahan Soomaalidu waxaan doonayaa videogan iyo kuwa la midka ee culimada ay kaga hadlayso in badan la isgaarsiiyo maxaa yeelay jahli badanaa jira maxaa yeelay ilaa ay hadeerta marka la leeyahay ay gabdho badan iyo wiilal badan ay sidaa ay sameynayaan waxaa la ii sheegaa walaalahan inay social media caan ka yihiin aad loo yaqaano khaasatan TikTok ayaa la igu yiri dabcan TikTok ay aad caan uga yihiin marka ma isleedahay dadka sida xaaladooda ay tahay oo social media ku jira marka ay ficilada noocan oo kala sameeyaan inay fasaad badan ka dhalan karto ma isleedahay shaki kuma jiro fasahaada ka dhalanaysa waxay tahay in dad badan ay ku daydaan maxaa yeelay waxaan ognahay social media hadba qofka intuu dadka taabicsan ama taageera ama ku xiran ay badan yihiin inay saameyntiisa badan tahay marka waxaa arkaysaa walaalahan dad ay role model u yihiin dada ku dayda dada taageerayaal u maxaa yeelay qofka hadii uu taabiciin badan ama dad badan oo dhageysto oo ku xiran uu leeyahay yani dad ayaa jecel oo ku xiran sidaa darteeda fidnay noqon karta arimaha noocan oo kala dad ayaa sameyn kara arimaha noocan oo kala bal waxaan aragnay hadda ka hor tan mid shabahda oo baranka yacnihi laga dhigaayo ciyaar iyo kaftan taasoo ay ahayd sidaas oo kale taqriiban waan ku furay oo kale xilligaasi waxaan filayaa dhowr bilood 9 bilood ama ku dhawaad sanad iska taqriiban ay ahayd waan ka hadalnay walaalihii waxay noqdeen inay dabcan markii dambe ay ogaadeen inay arinta ay
sida ay u dhacdo ay xadiidba uu ku yimid oo gadaal ay ka shallaayeen oo uu ka laabtay oo yani wixii lamidka laakiin waxaad arkaysaa in arrimaha noocan oo kale aad loo fududaysto dad badan ay ghaafiliin ka yihiin juhalo ka yihiin ogeenba arrintan inay dhab tahay sidaa darteed dadka arrintan fidnada ay ku noqon karto ama ay saameyn karto arrintan dabcan ay gaari karto suntan maxaa waa sun waxaan kuu sheegay kugu idhi hadba dadka intay taageero badan leeyihiin ayaa saameyntooda ay badan tahay sidaa darteeda dadka taageersan waxa ay saameyn ku noqonaysaa inay arrimaha noocan oo kale ayagana sameeyaan beritaan arkaynaa dad codkaasi intay ayagana qaataan TikTok ama Facebook ama YouTube ayagana sidaa sameynaya iyo social media kale dabcan ay jira marka walaalaha qaaligaho waxaad ogaanaysaan ciyaar ma galaan waxaan ciyaar galin waxyaalaha furiinka uu kamid yahay oo uu kamid yahay siismada gabadha waan kugu nikaaxa ama waan kugu meheriyay ma aqbashay iyo ama soo laabashada ee rajcada iyo xadiidka sida kale wuxuu sheegayaa cidqiga ama qofka inuu dhaho dabcan hadda ma jirto laakiin wuxuu ka hadlayay xilligaasi iyo hadiiba dabcan ay imaan doonto aakhir zamanka dabcan qof adoon ku ama qof adoon ayaa waxaa qofkan uu leeyahay xur ayaan kaa dhigay sidaas darteeda ayaa rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xur haddii laga dhigo oo la dhaho xuraad tahay wabillahi tawfiiq saasuu ku tahay qofkii xur ayuu sidaa ku noqonaya marka hadalka u fiirso waa sariix hadal xataa shubha yar la gelin kara ma aan ku celiya in yar dhagayso ifur igu celi waa ku furay saacan laga bilaabo bas beebiraan lahaa هذا العرس ويان الله سبحانه وتعالى دنبغير لما هدافو ولاشاسي ولالكاسي waxaan leeyahay aan jecelahay aan ugu baaqaya arintaasi inay gaf ahaan u arkaan ka dhacay dadka kugu xiran mas'uuliyadda ka saaran ay gutaan oo in arinta ay gaf ahayd dabcan videogaasina haday suura galayso kulay meel walba ku jira nacam meeshan hadda aan ka shiday waa Facebook afwan Facebook aan waa YouTube aan ka shiday hadirtan Facebook ku jira sidaas oo kale yani social media dhino maraya oo la isgaarsiiyay sidaa darteed hadii ay xataa ka saaraan waana marka aan dhaho nacam hadalka iga ho waa marka aan dhaho war walaalayaalo waxaad soo duubaysaan waxa tafaftiran waxaad ka fiirsateen waxaad isla meel dhigteen ha noqdaan gaar ahaan lamaanaha labada qof ee isqaba hadii ninka uu khaldamana gabadha xaaska waa inay dhahdaa war yaa meeshan wax baa si naga hadii ay gabadha ay khaldantana waa inuu ninka dhahaa war meeshan wax baa si ka yani dad iscishan kara dad isla talin kara dad wax isu dabcan sheegi kara tafaftiri kara waxooda inay dadka noqdaan social media waxaad soo geliso way ku daayeen wallahi waa sida hadalka ama videoga social media aad soo geliso haddaad dhimatana sidaas uu jiraya u tagaya maxaa kaada hadii laga saaro xataa familkaada ka saaran imisan aragnay dad dhintay ayagoo xumaan sameynaya dabcan familiadooda ay tirtireen videodooda laakiin aad arkaysa la wareejinayo markaas familiyadii leeyihiin walaalayaalow ilaahay idinku dhaaran sidaa sameeya oo ka tirtira oo ka bixiya wixii la midka taasi waa dadkii oo dhintay ayagii oo noolna qofkii xumaan oo sameynaya tusaale ahaan oo toobad keenaya wixii uu ka laabanaya oo ka tagaya oo ka baxaya kumanaan umada hore u qaadatay dad u qaatay ku xumeen dad iska fani iyo ciyaar u qaatay qofkii markuu wixii ka baxo waa kuwaas waxaad u malaynaysaa in markaa un la faafiyo markaas oo viral noqonayo adduunka gaaraya marka walaalaha xataa haday videoga ka saaraan oo meeshooda ay ka saaraan TikTokooda ay ka saaraan sidaas u wareegaya meel walba jira waaba kaasa hadii codkooda yahay ma u malaynaa inuu codkooda yahay waa laga yaabaa inuu codkooda yahay marka cidii codkan samaysay hadduu kooda yahay na sidaas u tagay hadduusan kooda ahayna kasaaridiis waxba ma taray sidaa darteeda ayaa waxaa wanaagsan video ama maqaal yar ama muuqaal yaran ula jeedaaye inay soo duubaanay dabcan dadka tirada badan ee ku xiran ay ugu sheegaan qalad inuu dhacay sidaa oo kale waana isbariyeelid meeshan dhambaal ayaan dirayaa marka dhambaalka aan diraya waxay tahay dadka la yaqaanay caanka social media kala duwanna ku jira ayaan dhambaalkan u dirayaa waxaan leeyahay waxaana jecelahay inaad gaarsiisaan dadka tirada badan ee dabcan hadee dadka la yaqaanay caanka markaan waa ay tiro badan yihiin waa boqolaal hadalkan ku dhahay waxay tahay ma og tahay dadka tirada badan ee ku yaqaanay kugu xiran ee hadduu YouTube yahay hadduu Facebook yahay TikTok yahay Snapchat Instagram iyo meelaha kale markaasi jiri kara Twitter iyo wixii la midka ku dar haddii marka dad badan ay kugu xiran yihiin waxaad ogaanaysaa mas'uuliyad ayaa ilaahay agtiisa kaa saaran dadka inaad xumaan aadan ku faafin dadkaasi mas'uuliyada ilaahay agtiisa ka saaran sidaa darteeda waa inaad dareemi kartaa in qof dad badan ay ku xirmeen haddaad noqoto inaad dareemi kartaad og tahay hadalkii shalay iyo ciyaartii iyo xumaantaad shalay samayn jirtay inay maanta ka saameyn badan tahay sidaa darteeda wanaag walbo arrintaad samaysa ka yimaadana inaad ajarkeeda leedahay xumaan walbaad samaysana inaad xumaantaasi dembigeeda leedahay ogow marka aayadan qur'aanka bal aan kuu fasiro si aad u aragto dabcanna waa taqaanaan intiina badan waxay ka hadlaysaa aayadan dadka lumiya keliya feeri dembigooda unma qaadi doonaan yani wuxuu alle subxaanahu wa ta'aala liyahmilu awzaarahum kaamilatan
يوم القيامة ماشي كري الله أقمهر ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وحي حنباري دونان أي قادي دونان دنبيدي عريسيدي لباتوينكي أيوة كاملة يوم القيامة أيوة كامله بوحة ما انتاسا لا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يضدك اللوميين sidaasoo kale xumaantii ay sameeyeen ayagana way qaadi doonaan marka taalaad qaadaysaa 10kii qof ee 100kii qof ee 1000kii qof ee milyankii kugu xirnaa ee daawaday wuxuudaad xambaari doontaa ma ahan kaliya taada weeyaan macnaha ma ahan walaalahan inaan leeyahay hadalkan dhammaan cid walba oo caan ah la daawado lagu xiran yahay ogow mas'uuliyada dadka ka saaran hadalkaada hadii uu hal qof gaaro halka qofna xumaan تي أديك سميسي أو سميو دنبيات كل هذا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام كوه ختمه رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه هي خفكي سنة وناكسن أرين وناكسن جذية وحوليه هي أجرك سنة داسي أو جذية يقف والبو سمي أجرك يذو ليه من سنة سنة حسنة سيدا سوكل إنعك لو إمو قفكي وح سيئة وحمان السنة حن جذية أما السمية وحوليه وليه رسول الله عليه الصلاة والسلام دنبيغا سنة حن وخف كاسميي يعد والبو دنبيغا سي سميسة أما جد كاسير راعدي قادة أيوه هي دنبيغا دليه رسولك الله عليه الصلاة والسلام سيدا درت هذا ولا لها قالي إيه دتك بدن أي كحرينيهين ميل السوشيال ميديا كدون تجوجي واحد أغانيسا مسؤولية ده كاسارن دتك كحرن إن يتهاي مسؤولية أخلاقية مسؤولية دينية وسيدة أقول أخلاق ضدك كوحرا وأنا دورتا إلى لسا دين ضدك كوحرا وأنا دورتا إلى لسا ما أنا كلية معناها وحن دونا سمي مرك غير كيسة حدي هذا وحياة ضدك كذا خصني سامين يسوق كله وحياة بدن حيري سمي معنا مرة لكن حيري وحياة بدن ما أخلاق ضدك وحودي ميسا ما دينته وحودي ميسا ما ضد آيات كدل من يسا إيه وحلا متك يعني وحيري اسكود إناد عد والبو سمين يسويا وأنا كمت عد والبو فيديو دوبا يسا ها أوجاتو هتجلسوا عقوش ضدك داوانا يكحرا هديك له ما أنت وحأنك قاري سوا محي إن ضد بدن وحات سمين يسحمان كاجد يدان بريتنا بلايني كسويس لا حول ولا قوة إلا بالله مركب بنجي هذا حق الشن هناكو كيتسن بلاي حمان الذنوب الله يدين بركيه ولا لها سن هذا الكاسان كلها أو دتك هذا الكائن وصوفة كذي دتك إذا كحرنا تيار بدن مركز بخلالك كنا داوانيسا أتليست حل فيديو إسكوبر يليسان أما خلط عينه وسمي الله يدين بركيه عيد والبوس سميني سنة سيو أوجاتو أرنتي نوعا أحيد إن أيغنا سمين لما أنا ياشا كو حدا إسقبا كو إسقورسان دونانا إني أركان أرنتها أو كلا إنينا أحيان أرن فضوط أو سيدا قفك أو كغفر مايو أو أي قبل أي تاي هي سيدا الغفري رجعتو دا أو دهي دبعا أو كلها بنايا حدينا دبعا أحيان ميدي سيد عادي وقدمي سدينا أحيان حلالي أتاو كلها بنايا مركا الله إذن بركايو إلهي سبحانه وتعالى هانا دورو لما أنتينا سوشيال ميديا فيدنا وذا جوغنا انتيسا بدن فتنة أيامهن نعم فائدوين بدن وليه لكن فتنتيسا waxay tahay mid sida u soconaysa والله فيديوغاسي guriga igu soo galay sida adiga guriga uu kugu soo galayo kan ama ka ayo sidaas oo kale guriga igu soo galay cid walba uu galaya marka waxa duubaysaan mas'uuliyad ayaa idin ka saaran waxa dadku u gudbinaysaa mas'uuliyad ayaa idin ka saaran dhamaanteen uu naga saaran yahay allah naga baxno tabaaraka wa taala intaas ayaan jeclaysaa inaan idin dhaho dhamaantiina dabcan guud ahaan wajazaakumullahu taala khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر